Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena Musaafir. Waxaana maanta safarkeena ku tagi doonaa waddan ka mid ah wadamada ugu weyn uguna caansan qaaradda Afrika. Waddankii uu ka talin jiray boqorkii la oran jiray Najashi. Waddankii ay u soo haajireen qaar ka mid ah asxaabta. Waxaana maanta safarka idinku helin doona anigoo ah Maxamed Ismaaciil. Ethiopia waa waddan ka mid ah wadamada dhaca bariga qaaradda Afrika. Waxa ay leedahay bad dhuleed la eg 1,100,000 oo kiiloomitir square. Waxayna ku jirtaa kaalinta 27 marka la fiiriyo wadamada ugu dhulka weyn caalamka. Sidoo kale waxay ku jirtaa kaalinta 12aad ee wadamada ugu dadka badan caalamka. Ethiopia waxa ku nool dad kor u dhaafaya 102 milyan oo qof, taas oo ka dhigaysa waddanka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waxaana ka horeeya wadamada kale ah Nigeria iyo Masar. Nidaamka Jamhuuri Federaalka ayaa ah nidaamka ka shaqeeya waddankaas. Diinta Masiixiyadan waxay tahay diinta rasmiga ah ee dalka Ethiopia, inkastoo 3 meel dadka Ethiopiaanka ay yihiin dad muslimiin ah. Sidoo kale luqadda Axmaariga ayaa ah luqadda rasmiga ee dalkan laga isticmaalo. Dawlad ahaan waxay Ethiopia u istaagtay 980kii dhalashadii Nabi Ciise ka hor, taasoo ka dhigayso mid ka mid ah dawladaha ugu qadiimsan caalamka. boqolkiiba 70 buuraha qaaradda Afrika waxa laga helaa Ethiopia. Dabcan waxay xaq u leedahay in la yiraahdo dhulka buuraleyda ah ee aadka u sareeya. Waxaan la sheegaa in meeshii ugu horeysay ee kafeega laga helaa ay tahay Ethiopia, goob lagu magacaabo Kaffa. Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada ugu faqiirsan caalamka, waxaana la sheegaa in 3 meelood 2 meel dadka waddankan ay ku nool yihiin in ka yar $1 maalinkii. Laakiin sanadahan dambe way ka soo kabsatay faqriga. waxaana 4 jibaar kordhay ardayda ku biirayso waxbarashada hoose 20kii sano ee u dambeysay. Goobta la yiraahdo Dalool ayaa loo aqoonsaday inay tahay goobta ugu kulul caalamka. Goobtan ma degano wax dad ah, waxayna ku taalaa dalka Ethiopia. Nus ka mid ah dadka degan Ethiopia waxa uu cumrigoodu ka yar yahay da'da 15. Hotelkii ugu horeeyay ayaa laga dhisay dalka Ethiopia sanadkii 1868 ilaa iyo haddana waa uu shaqeeyaa. Addis Ababa waa caasimadda saddexaad ee ugu weyn caalamka. Waxa ayna badda ka sareysaa 8,000 oo feet. Dadka Ethiopiaanka ah waxay aaminsan yihiin in dhalashada 2 gabdhood oo mataano ah ay tahay arrin nasiib darro ah. Qaarkood ayaa gaarsiiya heer ay yiraahdaan mataanaha waa makhluuq shar badan. Ethiopia waxay leedahay da'da dhexdhexaadka ugu yar ee la qiyaaso caalamka, halka ragga lagu qiyaaso 48, dumarkana lagu qiyaaso 50 in aysan dhaafin. Addis Ababa Marketo waa suuqa ugu weyn ee korka ka furan Afrika, waxa uu ku yaalaa Addis Ababa. Ethiopia waxay ka kooban tahay 10 maamul goboleed iyo 2 magaalo ismaamul. Addis Ababa ayaa ah magaalada ugu weyn uguna dadka badan dalka Ethiopia, waxaana ku nool dad kor u dhaafaya 3,273,000. Waxay leedahay maamul u gaar ah oo siimaada dawladda federaalka. Maamul goboleedka Oromia waa gobolka ugu dadka badan dalka Ethiopia, waxaana ku nool dad kor u dhaafaya 33,692,000 qiyaastii. Maamul goboleedka Soomaalida ee loo yaqaan Ogaadenia waa gobolka afraad ee ugu dadka badan, waana gobolka saddexaad ee ugu dhulka weyn dalka Ethiopia, waxaana ku nool dad gaaraya 8,518,000. Waxaan soo gaarnay dhamaadka safarkeena maanta. Haddii ay ku cajab geliyeen safarada noocan ah, la wadaag asxaabtaada. Wassalaamu calaykum.